وحربنا مانتا إنان شيغنو dhulka waxa ka bilowda roobku wali wadanka ma wada gaarin laakiin dhul badan baa roob ka da'ay cirkuna wali waa da'aya gugaanuna insha Allah ta'ala gu'aaran uu egyahay marka inta kicinka roobku uu da'ayo waxaan islaana bishaan may oo dhan roobku uu da'aya roobka maxaa ka dhalan doona Ilaahay baa garanaya insha Allah ta'ala wajigi koowaad oo biyadaan ahaa gurmadka abaaruhu maanta halkaas ay ku hakinayaan markii roobabku da'aan oo ay joogsadaan iyo wixii ka dhasha ayaanu wajiga labaad bilaabi doonaa sababtoo ah mashruuca wali sida ay dadku lacag u soo direen lacag baanu haynaa fiican insha Allah waxaan rabnaa inaan markii roobku istaago hadii Ilaahay aafaad kama keeno roobka laakiin waxa dhici karta dadka in qayb xooluhu ka yaraadaan in dhibaato kala timaado Ilaahay dhibaato naguma keeno haday dhibaato dhacday hadaysan dhicinba wajiga labaad roobku markuu istaago ayaanu bilaabaynaa waxaan rabnaa inaan u mahad celino dadkii mahadnaqii hore ka bacdi lacagaha soo diray waxaan ugu hormarinaynaa jaaliyadda Belgium oo Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf ku soo hagaajisay $3675 oo akaunka ku dhacay jaaliyadda Festros ee Sweden oo $1320 soo dirtay Cabdi Masuul ka ahaa alxamdulillah roob badaay sida uu sheegay Sheekh Fuad roobkaasi macami wadanka meel fiican buu ka daay waa lagu diirsaday waliba sanaagu noogu darayd roob wanaagsan baa ka daay oo aad iyo aad dhulkii u anfacay dad iyo duunyo iyo dhulkiiba fiican iyo cimri dheer iyo amal saalixa caruurta Ilaahay inuu suubiyo haweenka Ilaahay inuu suubiyo ragga Allah inuu suubiyo Ilaahay burcad sukiin mariyo qulubtiina baan Ilaahay ni baryeena maalkuna de kuma nusqaamo bixid la bixiyo waa ku ma aragtay bataa wana ku barakooba عمرنا إله سبحانه وتعالى وإنه يقول لي